السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خيرتكم waxaan kana qabtay tagaan vlog soo dhawaada muuqaal cusub ee asxaaba muuqaalkeenan maanta horta waxaan jeclaystay inaan jawga yar bedelo oo banaanka aan iska magaranaysa bal waqti ku soo yara qaadano midda labaad misaa horeyda ku sheegay haday cadceedu timaado inta banaanka la wareegaya way badnaanaysaa hadii alla idmo hoogaa waxaad moodaa inaan ka yar cagajiidayo dhowaanahan xaggii qaybtii ku saabsanayd technology-ga dhib male ardaynimaan xoogaa dib ugu yar noqday markaa iska raalli ahaanaysaan waqtigan soo waa garanaysaa fiican u helaan soo gelinaya haddii alla idmo maanta markaa jawgaas wanaagsanba waxaan siri bal inkastoo horta waa samir lamooda weli samar maaha oo dartaa koorkayga weli waan sitaa saasay tahay yaro qabow baa jira marka waxaan doonayaa inaan idiin sheego aan idinla wadaago yaro qabowga hadhowan xidhanaya koorkayga haddana nin sheeko yar baan doonayey oo muuqaal horena waan ka sameeyey waxaa jirta oo yacni waxyaabaha dadka lagu handada ka mid ah weliba dumarkaa aada ugu badan soomaalida waxaa iska tiraahdaa ninka raggaa ceebe ma karsay tiraahdaa laakiin adugu cid walba laakiin dumarka ayaa u badan inta badan waxaynu ku aragnaa inan sawirro ay leedahay oo u gaar ahaa yacni waqtiyo gaara ama aan sawiraan munaasib aan loogu talagelin inuu social mediaha soo galo laakiin aynu aragno marar badan heblaayo oo laga hayo sawir noocana heblaayo oo laga hayo muuqaal noocana siyaabahay ku dhacaan ayaan ka hadli doonaa muuqaal hore saan ugu sheegay hore idinku sheegay waan ka sameeyey markaa waxa weeye sheekaan idinka sheekeynayaa anigu markaan waddankii joogay igu dhacday waxay ahayd 2016 meelahaasay ahayd 16 baan filayana ahayd ayaan waxaan sameeyey meherad baan tegey meelahan internetka markaa waxaan doonayay file inaan la baxo documenti iigu jiray whatsappka markaa waxaan sameeyey maadaama aanan dee intaan meesha imaado aan kala baxo documentigayga aan hore u soconayey waxaan u tegey qolyihii meesha waxaan ku yidhi waxaan u baahanahay failka inaan kala baxo mid yar baa laygu daray waxa igu yidhi halkan fadhiiso keer wuxuu igu yidhi whatsappkaad ka diraysa soo mahaa soo saar whatsappka anigu markaa waxaan rabaa inay nabar ii sheegaan aan whatsappka ugu diro markaa iyagu maadaamay meeshoodii iyo dee kombiyuutarradoodu yihiin ay isku xidhaan waa aniga sidaa igu daabacaan mid wuxuu igu yidhi iska daa isagoo kaaga ku jiraan kuu diraynaa markaa wuxuu doonayaa halkan uga socda halkaas waxa uu rabaa in aan whatsappkayga QR koodhkiisa sheer sameeyo intuu iskaan ka qaato oo uu kombiyuutarka ka galo hadhowna uu halkaa iga daabaco waa easy wax la samayn karo laakiin sirta ku jirtaa waxay tahay qofku waxa uu haystaa whatsappkaagii buu haystaa oo fariin kasta oo soo dhacda waxa weeye halkan uu ka helayaa qofku uu ugu jiraa whatsappka markaa waxaa dhacaysa adigu ma ogid laakiin whatsappkaagii si gaaraa lagula isticmaalayaa shaksigaas ama inantaa ama wiilkaa yacni sawirrada privatka qofka u diraya ogow kombiyuutarkii imika ninkaas uu dee saasoo kale ugu xidhay isna xagga uu ka helayaa marka waxaa laga yaabaa inantaasi ama inankaasi inuu qof gaara keliya u dirayo laakiin gacan saddexaad baa ku jirta meeshii oo iyaduna macluumaadkii helaysa hadhowna dee hadday dhacdo xumaynaysaa waa xasuutaan inaan fanaaradna ah marna jiraa ah hibaaq gobaad beri dhaweyd sheekadii ku dhacday yacni kambanigii ugu talagalay ay yacnihii lahayd ha la ii hagaajiyo mobilka ama la idhiiga shaqadiisa hayey isla iyagiibaa haystay macluumaadkeeda waa tii sheekadu maqlay social media ku jirtay in badan laga hadlay
markaa sheeko noocaasa waa 2016 meelahaas kaga dhacday waddanka haddii aanan markaa aqoon u lahayn okay baan odhan lahaa dee saasuu qofkaasi ku samayn lahaa iyadoo aan dee wax noocaasa layga helaynin haddana dee xog kasta oo ma garanaysaa shakhsiyeed halkaasay taala qofka waxaa ku sheekaysatay qofka halkaasaa laga helaya marka anigu waxaan u arkayay dee qof aan waxaan ma garanaynin laakiin waxaan ogaaday inuu qof kan yar uu يعني wuxuu aqoonti garanayo oo uu rabo dee systemka dadka inuu wax uga qaadanayo tahay ka kaalay maalin dhaweyd halkan waxa laga joogaa bil miya meelahaas ama adigu bil iyo bad 2 bilood badhe ayaan sidaa iyo kale waxaan damcay inaan kala baxo inta badan halkan maktabadda ama library-ga ayaa kala baxaysa waraaqahaaga waxaan damcay inaan aado kii igu dhawaa u xidhnaa markaa waxay ahayd maalin axada u xidhnaa waraaquna muhiim bay ahaayeen kadib waxaan aaday oo qof baxayay gaari raacayay baa aan ka saarayay waraaqdii waxaan ka saarayay waraaqdii dhakhtarka testiga ayaan haadhaan uga saarayay marka waxaan u imi qolo innaga ah oo meel haysata kii markaan u imi waxaan ku dhashay ka noocaas jirta waxaan baahanay inaan WhatsApp file igu jira ka dirsado dhib male buu igu yidhi gal waa sheekadii 2016 ama 15 qiyaastii meelahaas ayaa isla halkan anigoo jooga oo igu leeyahay gal يعني waxaa arki karaysaa weli shaygu inuu jiro waqtiga intaa leeg qof kasta oo aan fahansanayna weli uu ku dhici karayo dabinka markaan u fiirsaday ninkan dambe iska xogaa nin yar weyn buu ahaa sidan loo tababarayo ma uu garanaynin laakiin kolley ka u tababaray ee u sheegay sidani waa uu fahmiyaa waxaan ku war sidan u soconayso haddaan inta halkan aan geliyo aan iskaan garaysato gabi ahaan macluumaadkayga oo dhan xagganaad loo wadaagaysaa maya hadhow baan ka baxayaa buu yidhi uma baahni baan ku inaan ka baxo waxa weeye waxa ka wanaagsan haddaanay xafiiskaagu lahayn system kale oo gaara email baan ku diraya iska dah marka yacnihii alternative-ka kale waan haystay inaan email ku diro iminka marka halkan joogay laakiin yani waxaan ku tusayaa isla systemkii aan markii hore oo waqtiga intaa leeg igu dhacday isla systemkii oo kale ayuu isagu igu bilaabay inkastoo aanay aqoontiisa ahaynsan u fahmay markii dambe marka muhiimaddeedu baraarujintu waxay tahay uma baahnid marka aad file ama wax kala baxaysid WhatsApp-kaaga qofka QR code-ka inaad u iskaan garayso uma baahnid sababtoo ah waxa weeye in uu yahay dee private weeye waxaan maaha wax publica hadhowna xogtaadii dhalkaas qofka helayaa mid kale waan ka sheekeynay san horeba inta kusoo sheegan kuri muuqaal baan aan ka sameeyay baa jira tan qudheed muuqaal waan ka sameeyay mid hore jira oo waxa weeye Google Photos-ka qofku markuu sameynayo waxa jira wuxuu u ogolaanayaa qofku inuu sawir kasta oo aad qaadaa uu kugu dhaco halka Google Photos-ka galo muuqaalka xaggan idin soo dhigi doonaa waxaa ka daawan doontaan yacnihii qofka yacnihii waxaan fahamsanay ugu tala galay in uu kula wadaago xogtaada sawiradaada muuqaaladaadaas wuxuu sameynayaa emailkiisu gelinayaa gmailkiisa sababtoo iminka adiga markaad gasho mobilkaaga gmailkaagaad ku xidhataa gmailkaaga iyo kanina way isleeyihiin laakiin haddii uu gmail labaad la geliyo kaasina uu kula wadaagayaa markaa muuqaal horan ka samaysaan idiin sheegayo waxaan doonaya inaan idin baraarujiyo labadaas anigoo cadcadda ayar soo yardhigaya waxaa jira dadka in xun oo dadka way yar yihiin laakiin aad bay uga fara dhuudhuuban yihiin dadka inta wanaagsan oo dadka xumaantooda baahisa markaa intay ka taxadira waxaan idin leeyahay oon idin salaamaya muuqaalka hadduu idinku dheeraaday ka raalli ahaada